shirkan jaraa'id ay ku qabteen magaalada Ceelafweyn odayaasha waxgaradka madax dhaqameedka iyo xildhibaanada ay ka soo jeedo marxuumad dhawaan lagu dilay deegaanka Baxsigal ee koonfurta Ceelafweyn waxay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in gacan ku dhiiglihii dilay marxuumadaasi oo laga soo qabtay deegaanada Puntland sharciga la hor keeno iyaga oo fariimano u diray guddigii culimada ahaa ee ka garnaqay arrintii Ceelafweyn oo ay ugu baaqeen in kiiskaasi ku sugayo Ceelafweyn sharcigana islaamiga ahna ay marin doonaan waxayna sidoo kale odayaashan iyo waxgaradkani mahadcelin u jeediyeen waayeelka uu ka soo jeeday ninkaasi gacan ku dhiglaha ahi sidoo kale dawladaha Puntland iyo Soomaaliland iyo saraakiisha ciidamada Soomaaliland iyo Puntland ee soo qabashada gacan ku dhiglaha si qaybta ka qaatay waxaan leeyahay ninka bilaabay wixii nabadii la dhaaday halka lagu soo xiray qarashka badan ku baxay 40 casho dadkii ka kala yimi gobol Sanaag barigiisa laascaanood sool weeyaane boorame berbera hargeysa burco inta Soomaaliland laga xukumo ay joogtaba dadkii ka soo gurmaday ee nabadda xiray wuxuu damqay ninkaasu wixii halka lagu xiray waxana lagu ballan qaaday oo ballankii lagu ballamay ahaa ninkii dambe ee arrin colaadeed muujiye ee fartaaga shanbaa loo taagaya xaqiisana waa la marinaya waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ninkaas isaga ah iyadoo aan lagu tacadeen xaqiisa hal la mariyo wixii ilaahay ku soo rogay waajibaadka ilaahay ka xukumay hal la mariyo sida aan u arkayo sida aan ku dardaarmayo wuxuu u baahan yahay in gacan ku dhiiglayaal lagu dilo nabaddu halkaasay ku xidhmaysaa halkaasay ku dhamaanaysaa halkaasay ku ekaanaysaa gacanta hal lagu qabto hal loo qisaaso saasaan u leenahay go'aanka iyagu waa ka go'aanka reerkana waa ka annagu nabadgelyada waa qabanno waa xidhnay kii aanu ka shakinay wixii haystay waa ka qaadnay ilaa ninkaa ama uu noqdo nin la waayo ama nin la helo nabadgelyadii waanu xidhnay waayeelka reerka hadduu Garadag joogay iyo hadduu Burca joogay iyo hadduu Hargeysa joogay wuxuu isugu yimi Ceelafweyn isagoo uga jeeda waxaas inaan halkaa dhaaf culimadii dawladda go'aan bay ka riday go'aankay ka riday wuxuu ahaa wixii waxa ka dambeeya wixii gala waa dil waxaanu leenahay ninkaa inanta dilay ka xaq daran hal loo dilo hana la keeno guddigii Ceelafweyn ee heer qaran iyo heer dawladeed intuba isugu jirtay madaxweynuhuna arrintoodii halka markii laga qaaday saxeexay in la keeno degmada Ceelafweyn lagu qaarajiyo baan doonaynaa dawladda gobolka Sanaag hadday tahay taliye qaybeedka haddii ay tahay bala saabka haddii ay tahay taliyaha militariga haddii ay tahay CID intuba way ka hawgashay iyagana waa mahadnaqayna oo waxaan leenahay kitaabka Ilaahay wuxuu sheegay qofkii qoftii ilo nabadgelyada Ceelafweyn waxay ku xiran tahay ninkaas oo la dilo haddii aan la dil wixii aynu wadnay ee ku hawshoonay waa halkeedu gobolkan dilka fool xumi kama dhic sababtoo umul 40 habeen dhalanayd oo ilmi daba ooyo dhuunta xabadi kaga taab kama ay dhicin taas waa dil gooliya oo fool xun oo nin kastaaba dhibaysa kii maqlaba waa dhibay waana sida lagu istihaadee ninka lagu doonay waxaanu leenahay go'aanka markaanu soo raacayno ninkaas sidii la xukumay ee culimada iyo dawladduba isla qaateen ee ku filaatay shicibka uu qaatay in qofkii qoftila loo dilo cidda wax laga dilaana sugto waanu qaadanay waa sugno ismaana dhaqaajin iyana wixii xilka iska saaray sidii ay ku labay bay u dooneen waxa haray oo aanu sugaynaa fulintii sidii ninka loogu dili lahaa gabadha ilaahay wuxuu soo dejiyay distoor xaq buu soo dejiyay kitaabka quraanka qoran wixii kitaabka ka soo baxa baan nasiibsanaynaa ilaahayna uu ka warramay aayada ilaahay cadeeyay baan ku dhaqmaynaa kuna soconaynaa fariinta yada iyo shirkaanu maanta qabanay uu yahay mar labaad haddaanu nahay jinaaxi gabadha iyo eheladeedii anoo xildhibaankeedii waxaanu ay tahay shirkaanu qabanay halka xukunka Ceelafweyn laga qaataano ku dhaqanay gabadhana lagu dhaqmay ee halka lagaga ballamay in lagu sugayo Ceelafweyn in ninkiina Ceelafweyn la keeno culimadii waa ta imanaysa iyo wadaadadii in markay Ceelafweyn yimaadaan ninkiina la keeno sharcigana halka hareeraha lagaga joogo oo aan hadhowto la oran kuma jirin iyo halkana ahayd way dambeysay midna aan la oran waxaanu leenahay
annagu nabadgelyaanu hayna waanu mahadnaqayna cidna maagi mayno kama xumin qadarka dhac laakiin halla sugo halka waa tii kitaabka lagaga ballan xeer lama qaadin kitaab baa lagu dhaqmay kitaabkii waxaanu farayn wadaadadii iyo mas'uuliyiintii kale ee Ceelafweyn hawsheeda u soo noqonaysa tanna way idin sugaysaa maxamuud cabdi bar warbaahinta caalamiga ah ee burco online.com sanaag